بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo dhibaatadii ka dhacday meesha la yiraahdo Puntland runtii Puntland waxa ka dhacay dagaal culus oo runtii dhib badan geystay culays badan geystay la yaabna lahaa oo runtii qaabka loo abaabulay iyo qaabka ay wax u dhacanay la yaab ummadda Soomaaliyeed ee guud ahaan caalamku ay ku lahaa marka hore waan ka tacsiinaynaa wixii meesha ka dhacay waxaan u tacsiinaynaa maartay dhammaan ummadda reer Puntland madaxweynaha iyo shacabka salaadiinta xukuumadda baarlamaanka yani intii dhimatay oo ay waxyeello ka soo gaadhay dhibka halka ka dhacay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dambi dhaaf siiyo ajirna siiyo intii dhaawacantayna waxaan leenahay Allah subxaanahu wa ta'aala ha caafiyo marka koobaad marka labaad anoo ku hadlaya magaca dawladda Jubbaland runtii anaga reer Jubbaland ahaan waan la soconay dagaalka ka dhacay meeshaas runtii si hoos aan ula soconay si moral ahaan iyo maskax ahaan iyo ficil ahaanba waxaan u garab taaganahay una garab taagnaan doonaa markasta dawladda Puntland iyo shacabkeeda oo runtii aan marnaba raalli ka noqon doonin in xadgudub lagu sameeyo amniga ka jira Puntland iyo systemka reer Puntland runtii muddada jirsaday ee dawladnimada ka jirta halkaas in lagu ciyaaro ama cadow gudahooda ku jira ha noqdo mid banaanka runtii anagu ma raalli ka noqon mayno waana ka digaynaa waana ka soo horjeednaa ama shabaab ha noqdaan ama ciid kale ha noqoto runtii arrintaasuna waa arrin maartay dadka reer Jubbaland dareenkooda ay sida uga muujinayaan weeye ana ka xunahay runtii wixii halka ka dhacay waxaan rajaynaynaa insha Allah bidinal kareem inuu noqdo darsi ay shabaab qaataan oo runtii waxyaalo fara badan oo dhaqan xumo ay sameyn jireen ay had kadib ay loo wala baxaan ogtii ma noqonay shabaab gobolada Soomaaliya hadda waliba ha u badnaadaan qoladan koonfurta iyo bartamaha dhibaatooyin fara badan iyo dagaalo badan ay ka wadaan marka waxa isweydiin leh Puntland oo runtii hadda meel nabadgelyo ka jirta ay ahayd kana fogeyd meelaha dagaaladu ka dhacayeen waxa inta isu abaabuleen oo runtii ciidanka inta leeg loo geeyay runtii wax la yaab leh noqotay arrintaas marka waan la qaybsan doonaa had kadib wixii kastoo meesha ka soo baxa reer Jubbaland way la qabsan doonaan shacabkoodu runtii marka dareenka reer Jubbaland waxa weeyaan in ay maanta ku faraxsan yihiin dagaalkaas in laga guuleystay oo la jabiyay nimanka cadawga ee duulaanka ee halka tagay in la jabiyay oo laga guuleystay runtii waan ku faraxsanahay ka xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaanba waxaan rajaynayaa insha Allah bidinal kareem barnaamijkaas sidaas inuu ku soo jarmi doono kuwa faraha badan ee runtii gobolada Soomaaliya ku dhumaalaysanaya culayska ku haya meel fara badanna sidaas oo kale in loo jamin doonaan rajaynayaa insha Allah bidinal kareem waana u tacsiinaynaa dadkaas aad iyo aadna waa u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.